السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاشين. الحمد لله ورمانت ميلان سارتان هلاي سيتي مفي عنتين حالة كورم ولا هاي قدمانتين الله إذن نود قليو الدنيا آخرة وأولاشين ومانت هشي ميلا سارتا بحلده إسارة جرتي هشي قرقي مركي لدقي وحلا كلا قرقري بالله هلاي العابتي الحمد لله وشكر لله لما أنت وايد السلام يا ولا هيجا الله السلام يا إلى الدنيا آخرة سيليها هاي ورككينا الحمد لله وفي عنها إنه الحمد لله وحنقبو يتشب يحالة أهي وكرون الحمد لله وشكر لله ودنا وحنشوقنا مقالة وحنشوقنا قبوه بنشوقنا الحمد لله وشكر لله حال الدين كيانا اسكسو الدبريدة وركا كيانا ما انت بحان دين هيا أخبار بان دين هيا يوتوب كيان تان وريقي سلبدا انبري قبادي كينياتك هيدي لبدا عرورو كويتين تاها عرورتي كويتين تاها او برورتا دقايدين كدعايسي aabahood ba xataa la ooyay naxariistu waa taasi midaan jirin naxariistu ilma aysan dhalin oo aysan shaqo ku lahayn ayay saas ku noqday wada jeedaan naxariistu subxaanallah ilaahay subxaana qofku naxariis geliya waa sidaa ilaahay naxariista nagama qaado qofka naxariista la'aanta waxa weeye qof aan fiicnayn weeye ilaahay subxaana wa tacaala ما جعل قفك النحريست أن لهين وقلبي سجاسي جيه رجي دمربا ووجه دان قبض سكياتي أو حليلات كياتي قبل ما نقلب بغينا صومالي أيضا ضفحنا ووجه دان قبض كياتي المهاس كويتين تاسد وبرورتين قدريين يا كويتين أقاوحي هايين أي وبرورتين وذلك يسين ننكي بحتى مركي دنبو الله إلا أوي ninkii baa xataa la ooyay ninkii caruurta dhalay baa la ooyay calaashaan ilmahaas usay noqdeen waxa laga yaabaa hooyadood inay qof shaqaala tahay oo shaqaysa inay tahay baa laga yaabaa aanu malaynaya codkaygu ay ka fog yahay waxa laga yaabaa hooyadood ilmahaas inay shaqayso haddaysan qof naxariis laahayn sida uguma ay baroorteen uma ay booyeen caruurtaas haddaysan qof wanaagsan ahayn waad arkaysaa iyaday la seexan jireen iyadaa hoosta gelin jiray iyadaa qof waxay u ahayd maasha allah tabaaraka allah ilaahay naxariista adduunka iyo aakhirada nagama qaado nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la yiri ilmihii Faadimo isagoo tukanayay madaxa ka fuuli jireen baa lii ilmihii gabadhiisa isagoo tukanayay ayay madaxa ka fuuli jireen baa la yiri Soomaaliduna waxa weeye ilmaha waxa loola shahiitamaa سبحان الله سي أذم ليسد إلهي بنحريست قلنن نحريس نسجلنن بعضهم ليسا الملة دلها يلا يرى مدرسة ده مركا حتى قرآن الله دقها يلا يرى أذوقنا تشسم قال لا ده أذوقنا تشرك على ده أنوقنا لفت عن لا بالقف لا يرى وقف سجن عمل محاهيته وقف حبس اللي حكومة يقول اللي حكومة إلهي نحريست أنا قاعده نحريست وافي عنته naxariista waxa la yiraahdaa waa fiicanta hooyada iyo aabuhu inay naxariista ilmahooda u naxariistaan oo ilmahooda wanaajiyaan ha weynaadana ha yaraadeen mar walba looga baahan maahan qofka naxariista ka tagta subxaana maalka qadus ilaahu naxariista naga qaadin dad baan moodaan naxariistu inay ka maqan tahay walaa ilmahooda walaa kuwa ay dhaleen walaa kuwa ay sii dhaleen midna aan naxariistu lahayn marka waxaan dileeyahay walaalahayga waa arkaysaan gabadhii yaraydo oo ahayd muxuu ahaa gabadhii yaraydo oo kiyaatiga ahayd gabadhii kiyaatiga ahayd iyo caruurtii qarabta ahayd si isku ahaayeen annagana waxa laga yaabaa gabdhaha wadankan la keenayo oo ama imaanayo soo shaqo tagahay inaysan arki karin ilmaha ay u shaqeeyaan ma garateen inaysan arki karin baa laga yaabaayo ay la dagaalaan oo ay xumeeyaan oo ay garaacaan oo ay bahdilaan ilaahay subxaanahu noo naxariisto
qofku meel kasta uu joogo ama asagoo ha dhalo ama waarid ha u ahaado ama walaal ha la ahaado ama muxuu hayta aabba ha u ahaado ama abti ha u ahaado ama adeer ha u ahaado inuu ilmaha naxariis u leeyahay ilmuhu inay naxariis u leeyihiin inuu ilmaha naxariis u leeyahay waxaasna waxaa keenaya qofku qalbiga hadduu ka angago ilaahay qalbiga iyaga ma angajiyo qof ilmo yara u naxi waayey u malaynayo inuu ilaahayga abuurtayna u naxaayo ilaahay uma naxariisto qof ilmo yara oo saqiir oo sabiya oon ilaahayba dembigiisa qorin u naxariisan waayo ilaahay dembigiisaba uma naxariisto waxa weeye waxaan u leeyahay oo keenaya mataqaanaan ilmo yara ilmaha wallaahi anaa shala gabadhii la ooyey gabadhii yarayd oo muxuu hayto oo kenyaatiga ahayd oo caruurta ka daba ooyeysay anaa la ooyey sababta ta waxaan ula ooyey waxa weeye ilmo yara oo sabi ah bal sidaa gabadha uusan la jinsiyadda iyo la magaciisiga xataa hadduu rabo la diin ma ahan oo iyadu muslim ma ahan siday uu naxariista ugu gashay ilmaha ugu dhageen hooyadii dhashay intay ka cararaan ay ugu dhagayeen ilmaha gabadha aan dhalinin oo xataa la diintaba ahayn bal ka warramo marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo carabaha ka shaqeeya gaalaba iyo gaal iyo muslimba ka shaqeeyaan meesha ka shaqeeyaan waxa loo baahan yahay naxariis sababtoo diintu inay idin hogaamiso muslim baatii diintiinu inay idin hogaamiso xataa hadiinan wadan muslim joogin diintiinu inay idin hogaamiso inaa ka naxariis badantiin dadka gaalada inaa ka naxariis badantiin sida diinteenu ay u naxariis badan tahay sida diinteenu u wanaagsan tahay waa aragteen subxaanallah gabadha shalay way iga oohisa wallah anaa la ooyay gabadhii sababtoo ilmaha yarka oo sabiga aan ilaahayba dambigiisa qorin siday ugu naxariisatay oo waaridkii dhalinta uga soo cararan ay iyada ugu imaanayeen ayaa marra muxuu hayto qalbigayga isiin weyday kuwa muslina oo muslimnimo sheeganay oo diin ku dhashay oo diin lagu dhalay oo diin waaridkii dhalay ku soo rabeeyay ayaa naxariistaas lahayn oo qalbigaas sidaa u wanaagsan lahayn oo aan sidaa naxariista badan oo fiican oo wanaagsan oo qabow oo macaan oo siday inta ilmaha u qaadato iyadoo socota ay wali diyaaradda inay ka tagaysa laga yaabo ay u qaadanayso marka waxaa la idinka rabaa in diintu idin hogaamiso in qalbigiinu qabow yahay in diintiinu ay maaragtaa qof macaan idinka dhigto maahan in qof gaasiyo oo qalbigiisu xun yahay oo qalbigeedu aysan fiicnayn inay idinka dhigto muslim baa usoo shaqataysaan risq baa raadinaysaan gaal iyo islaamba waxaad u shaqaysaan risq baa raadinaysaan xalaalan dayibana baad raadinaysaa waxaa laga yaabaa iska daa khayr aad u gashido reerkii ay xataa dhahaan war midaan bisha hadday noo dhammayso naga hana dhaafto anigu weligay horta maana soo shaqayn laakiin waa malaynayaa macnaha dadka shaqeeyo gabdhaha shaqeeya inaysan maaragtaa inaysan dadka ay u yimaadeen aysan qalbi wanaagsan tusin ilmahooda inaysan wanaajin inaysan gabdhihii hore horta misamaan markaan anaga wadanka soo galay waxaa la dhihi jiray Soomaalida ugu fiican wax shaqaysa maxaa dhacay sababta ilmaha diintayba baraan waa dad islaama laakiin hadda inta TikTok-gaan iyo balaayadan iswada ruuxaysa iyo najaasadaan ay adduunka soo gashay waxa weeye dadkiiba xataa bedelmay qof baa shilimaad wuxuu siisanaya inuu si soo qaawiyo dharka soo dhigto isruxo dabada ruxo naasaa ruxo nimanku iswada ruxaan oo niikiyaanu waxaas waxa keenaya day ilaahay dartiis allaha subxaana qaadir baqdintiisa uma sameynayaan ariyaal iyo shilin heshid bay u leeyihiin laakiin waxay halaynayaan waa diintoodii macaaneed wejigoodii wanaagsana alla ka cabsigoodii wixii bay halaynayaan aniga haddaan shilin la siin iyo haddii ilaahay subxaana qaadira wixii alla ii katabay marra ma seegayo ama aan dabada ruxo ama aan wejigayga soo saaro ama aan isruxo ama wax walba oo sameeya wixii allaha subxaana qaadira ii qoray waan helayaa hadda waxaan ku jiraa YouTube-kaan 3 sanaan ku jiraa waligay 10 riyaal ay leeyihiin 10 shilin ay leeyihiin ilaahay waa iga xaaraan haddana waxa weeye ma ka caajiso waan soo galaa waan hadlaa waan qoraa waan sameeyaa waxaasna waxa keenaya waxa weeye inaan walaalahayga ismaqalno unbaa ii muhiima inaan dadka ismaqalna ii muhiima inaan maaragtaa maxaa oraahdeeda soo jeestaa ii muhiima qofku waxa weeye wuxuu leeyahay qofku bilow aadanka ilaahay abuurtay wuxuu leeyahay shacni buu leeyahay macnaha wax uu soo saaro ama wax ka soo baxa ama wuxuu dhageysto leeyahay anigu dadkan dhageystaa anna in la dhageysto waxba igama hor joogaan sababtay taada qof marba hadaan wax igu dhex jiro oo dhageysanayo war baan dhageysanaya warkii baan dhageystay maanta oo war baan dhageysanaya dhagtaan ku haya muxuu sheegaya waxa aniga sheegay waxeeda kale uu sheegaya marka waxa weeye walaalahayga waxaan leeyahay dhamaantiin ilaahay waqtiga haydiin hagaajiyo
إلهي سبحانه وتعالى دم بجاني دم وارد كان به دافو نحريس وارد الدنيا أخرب الله ينسيه الدنيا أنت وناكسن إنه آخرة إننا وين كدم بيسام الدنيا دان هذا ده وراتيو الدنيا وراتيو ماذا أن لقى وارين أو لقى دمنين أو لقى سيحنين أو لقى رات حنوسنين أي قدم بيسام هرت متى وين هجاتيا متى وين قرحية بدنا وقروح بدنا وفي عن ما وحن هجاتيا مد الغيا بابا أنا الدنيا محبة كارجنا عندنتو ما الغيا بابا أنا لحدا أنا قارين عندنتو والغيا بابا أنا قون محوها يتوينانين عندنتو أنا وحول بكيا لكن ماشي أنا وبصعد أو خصوا يتأين عندتو ميل حتى ردان ده مقالة إن هذه قصب معنا مقالة أدم إن الميل هذا ما انقصب لكن ميل انقصب لاسن أي قصب تأينا هذا oo lagu waarayo oo laga dhimanayn oo laga weynaanin oo laga jiranayn oo laga seexanayn ilaahay ku dhaariyay taasaan haleeyaa ma taasaan wasaqeeyaa kafaaya inta aan maaragta adduunkan ku noolay kafaaya ilaahay iga cafiyo wixii dambi oo aan galay oo telefoonka aan ku hadlayo waxaasaan ku duubayo waxa ilaahay haday dambi ta Allah iga cafiyo anaga inta islaamaba ilaahay naga cafiyo isaga qaadir oo raxmaan oo raxiim ilaahay subxaan dambigeena dambi waaridkan baan af wax walba waxa ka weyn walaalayaal nolosheen adduunkeena meesha akhradeena tageen ayaa ka weyn waxa ka weyn qof walaala oo aad jeceshahay oo kugu wanaagsan inuu qalbi xun ka barto oo qalbi xun kugu arko waa xaraam inuu dambi ka raadsado ama dambi ka gashido waa xaraam inaad qof ilmo yar yar oo sabiya ama gaal hada muslim hada inaad dhibaataysid waa xaraam ilaahay raali kama ahan ilaahay raali kama ahan ilaahay raali kama ahan sababta tawaasab ilaahiga abuurtay oo soo adduunkan keenayba oo dambigiisa ma qorin gaala aada muslim hada wuxuu ahaanayaa laakiin dambigiisa ba alla ma qorin adiga ma aragta inaad marka ku dambi ku gashido dishid oo lagu ma jeedo kala tuurtido wax ku samaysido ma marka waxaan leeyahay naxariista waa dhal gabadhii ku heystay waa runteed waa ilaahay baan dadka ku abuuray ilaahay naxariistiisa ayna ku dhigtay saa qaadir oo raxmaan ilaahayna noo naxariisto meel kasta aan joogna ilaahay noo dambi dhaafo naxariis waartan ilaahay na siiyo dhammaanteena waxaan idin leeyahay walaalahay soo dhawaada waa in jecla sida ay jeceshiin saa idin dhageysataan sidaad ay maqashaan baan idin maqlaa warkiina dhageystaa hadalkiina aan dhageystaa mar walba sababta waxa way hooyooyin wanaagsan oo ma sha Allah tabarakallah oo qiimo hadal qiimo ku hadlaya ku jira aabayaal wanaagsan oo hadal qiimo ku hadlaya ku jira iisaankaaba iska sidaas subhanallah fiha naas katiiriin في ناس كلامه ما شاء الله تبارك الله يكلمون كلام صحيح وكلام حق ما شاء الله تبارك الله كل شيء موجودين يكلمون عربي ويكلمون عجب كل شيء الله يحفظهم من كل إنسان الله يحفظهم من كل مسلمين إلهي يحفظ كل مسلمين سقى عادل والرحمن كل مكان يتشوغان بقى لما أنت واحد لا ما أنت ساعده هدين وناك سناته سيدا يتعيشين باندين على ولاش فوسوي الله يدين فايسي الدنيا والآخرة إن شاء الله لما أنتين بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.